qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayr. dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay ku xasuustaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya inuu kamid ahaa saraakiisha hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab isla markaana uu ahaa wakiilka hay'adda NRC ee dalkan Kenya booqashooyin kala duwan oo ku imaaday xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab. dadka reer Dadaab ayaa waxay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayr u rajeeyeen inuu Allah subhanahu wa ta'ala u fududeeyo xilka loo igmaday isla markaana uu ka warqabo xaaladaha qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab. qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxa hadaladoodii kamid ahaa Bismillahirrahmanirrahim. magacaygu waa Engineer Egos oo ku nool xeryaha Dadaab special xagadeer. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa madaxweynaha sidii kalsoonida leh oo u soo doortay Mudane Xasan Cali Khayr oo ah ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed. ninkaas oo ah sida anaga aan ku naqaano maadaama special xagadeer oo kasoo jeedo nin wax badan qabtay oo muwaadina oo nacab musuqa cadaaladana u heliya. marka waxaan ka codsanaynaa mudane madaxweyne iyo ra'iisul wasaare in aad deegaanka dadka barakacayaasha Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga Kenya waa dad ka sifaysan qabiil iyo nacayb waa dad Soomaaliya waa dad United in dadka u sameeyaan meel special oo ay yimaadaan ayagoo maamulkooda ama sirishkooda wata iskuulana u dhistaan biyana u sameeyaan intaas aan ka codsanayaa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Soomaali idilkeed meel ay joogto waa salaamaya. waxaan leeyahay Soomaaliya waa tii aan sugeynay waa in isku duubnaada waa in horumarka dalka iyo dadkaba laga fikiro. waa soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub sababtoo ah waxa ku soo kalsoonaaday madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waan u hambaleynaynaa ummadda Soomaaliyeed. waxaan leenahay shaqo wanaagsan guul hal wada shaqeeyo hal isku duubnaado. وليش عبد الله آدم وحاوهم بلينا وحلا يلو كذا برلمانك يا مدحوينها dad cusub oo aqoonyahan ah la soo xuro sida u soo xushan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa kamaan nuudin saal oo jooga xarada qaxootiga xagadeer Xasan Khayr oo ra'iisul wasaaraha soo doortay Farmaajo zaid aan taageersana waxaan joogaa xarada qaxootiga xagadeer waan soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha cusub Xasan Khayr waan ku faraxsanahay waxaan leeyahay hadii shaqo wanaagsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة وحسين عبد الشكري وصول وينا رجالها عصوب آدي معناها صول وينا وأنا معناها قعم فرن قلب فرن قلبي قنوين والشقيس عصوبة معناها رجينا دول عصوب مدحوين عصوب رجال عصوب شعب عصوب نول عصوبة معناها نول دلاتيها تقدر بحرجيننا دول كان هو يقولين الشمالي نقولها ونو محمد عبد الله يقول هذه هي تي في قرن كسومالي ريها قحوتيga